واتاي waa mar kale iyo barnaamijyadanadi hibe iyo haldoor caawa aan sidoo kale ku soo qaadan doono wax la yiraahdo logistic and warehousing. Mawduucan waa mawduuc baaxad weyn weeyo logistic and warehousing macnaha waa muxuu ahaa ka adeegida kala raridda dejinta saarida xifdinta isdulsa saarida kala qadqaadida kala gengeynta macnaha agabyo ama aalado kala duwan. Magacaygu waa Maxamed Faarax Shire, halkan ayaadna kala soconaysaan haldoor iyo hibe iyo haldoor barnaamijkan ugu magac dareen oo ugu talagalay in dhalinyarta gobolka ama guud ahaan Soomaalida aan kaga wacyi gelino in ay bartaan shaqooyinka gacanta si aan uga maarano shaqo la'aan baa jirta iyo shaqo u baahanahay iyo noocaas. Waxaan ku hayaa fursado qaali ah oo aad leenahay dibadda iyo dalka gudihiisa waad kaga shaqeysan kartaa. Qiyaas bijra qof Soomaali ah oo pika ah ama baka macnaha pika macnaha waa mid meel wax ka soo qadqaado shaqadiisa waa inuu soo qaadaa meeshan keena. Marka waxaad ogaataa in la soo qaado oo meeshan sheyga la keeno cilmi badan baa ku jiro. Cilmiga ku jiro marka muxuu waxa weeye you need to handle it carefully. Tusaale ahaan shaqadaada idil waxa weeye inaad mataqaanay aad boqsiyaal meel ka soo qaadid boqsiyada ayaga aad meel kala geysid. Markaad fiirsid hadda shirkadaha ugu weyn ee dadka Soomaalida dibadaha ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaan waa noocaas. Shaqooyinka ay qabtaan waa picking and packing. Marka mid baa bagareeyay oo wuxuu ku riday ka soo qaado kala kalluun 20 box oo kalluun uu meesha ku dhex riday. Kuna wuxuu ku sameeyay silin buu ku sameeyay waa shaqo kale la socda. Midna wuxuu ku sameeyay picking wuu qaaday meel buu sida ninka Soomaaliga ee Muqdisho joogo ama Garowe joogo ama Hargeysa joogo ama Jigjiga joogo ama jooga Qarbadahar joogo ama Hargeysa joogo ama Shilaabo joogo ama jooga Gaarso Wajeer Mandheera Dadaab Ijaara Masalaani Balambala joogo aw ninka asaga shaqada ayada wuxuu arkaa markaan ka sheekeynayo wuu arkaa. Laakiin waxa xasuustaa midka telefoonka u dirtid ee dibadda jooga shaqadu qabto waa noocaas waa picking and packing. marka ma jeclaan lahayd inaad shaqada baratid? Yes, waxa fursada jiro college jiro aad ku baran karto shaqada ayada. Way iskama ma aha wax macnaha qadqaadkii baa macna loo sameeyay xaraantii waa macna loo sameeyay waayo because of wuxuu u baahan yahay numbering iyo wuxuu u baahan yahay mataqaanaa soo jeedin iyo kala jeedin buu u baahan yahay. Marka waa warehouse-ka shaqooyinka laga qabto. Warehouse-ka waxa waa guri weyn oo ay taala mataqaanaa ay sheeg badeeca ay taalo. Badeecada ayada haddaan dhahno waaba ka soo qaat waxa weeye ii sheeg raashin baa yaalo waxa taalo ukun baa taalo waxa taalo wax badan baa yaalo. Macnaha ukun waxa soo qaadanaa waa the list waxyaalaha khatarta ay jajabi karo. Waxaan aragnaa Nairobi oo kale gaari idil oo loori ah oo ukun ay ku raranta. Qiyaas ukuntaas aniga hadiliidiyo macnaha kulli wajhi jabinna adigana sidoo kale sameeyay laakiin nin picking and packing rag yaqaano ayaa shaqada ayada yaa qabtay. Marka waa koosaska noloshaada wax badan ka soo celin karo wax ku baran karto. Koosaskaas uma baahna secondary baan ka soo baxay primary baan ka soo baxay uma baahna still adoo ka soo baxday inaad baran kartaa si nafsadaada iyo noloshaada aad mataqaana ugu dabarto. Way meeqa qof oon ognahay ya shaqo la'aan oo xanshimo haysto. Waxaan arkaynaa gabar Gaarisa geed isku xireysay. Waxaan arkaynaa kuwa shaqo la'aan Muqdisho. Waxaan arkaynaa mataqaana kuwa Hargeysa kuwa nolosh marka waa picking and packing. Sidoo marka waxay ila tahay shaqooyinkaas waa fursado banaan caalamkooda inay ka banaayeen. Haddii marka aad shaqooyinka baratid oo ila soo xiriirtid fursado waxaad u heli kartaa in mataqaanaa ay sheeg aad dibadaha aad aadi kartid oo nolol fiican heli kartid. Qiyaas dadka hadda ka shaqeeya dekadaha ka shaqeeyo kale dekada Mombasa oo kale dadka shaqeeya qiyaas intay dheeyay waa dad aad iyo aad u fara badan. Waxa laga yaabaa Mombasa ka shaqeeya dekada ka shaqeeya county ka shaqeeya kuwa dekada ka shaqeynay ka badan yihiin. Dekadana hal magac way leedahay county-guna waa 10 wasaaradood weey. Qiyaas marka so that why do you maxaa isku dhibaysaa oga hadlaysaa ii sheeg aad oga hadlaysaa waxba ma soo baranin iyo shaqo la'aan baan ahay
dowladda countiga saa iga iyo dowladda nationalka nooca iyo reerka anaga nin matala ma jiriyo don't waste all that time waqtigaas ka dhuminin come and join me casharadayda la soco si noloshaadu wax badan mataqaanaa ay iskaga bedelaan waay adiga muqaadaraadkaad u cunaysaa waay adiga adqaadka aad u cunaysaa waay dariiqaad u taagan tahay waay qorigaad u wadadka u dilaysaa waay adigoo yar aad mataqaanaa u halaabaysaa don't do that all those waxyaalaha sameyn beenta iyo propagandada iyo Facebook iyo TikTok aad la taagan tahay iska daa waxa ayaga adi iscaawi guri weyn dhiso gabar qurux badan guurso gaari gado and then picking and packing samee that is it waa samayn kartaa haddaad rabta Mareykanka Australia meel alla meesha rabtidna fursado ayaa jiro kulli shaqooyinka ayaga waad baranaysaa kadibna mataqaana waa codsanaysaa si tartiibo degan adiga oo gurigaaga joogto yaa lagu qaadaya weli visa sponsorship qaar laha jiro oo aad ku tegi karto marka fadlan barnaamijyada ayaga aan iska wada caawino loaderka baa soo haray Soomaalidu waxay tiraahdaa loadaga xamaaliga marka waxaa jira wax la loader and loader macnaha midajiye iyo soo mataqaana soo dajiye in fact markaad fiirisid shaqooyinka ugu badan ee dadka hadda inta badan anagu aan daba fadhino ee Soomaalida ee dibadaha joogo ay lacagaha badan ka helaan waa loadingkii and loadingka way nin aniga aan mataqaanay saaxiibaan nahay ba ii sheekay waxyaalaha uu ka shaqeeyay waxa kamid ah lacag badan oo guriyo iyo hanti badan ka sameeyay inuu Amazon-ta u shaqeeyo oo maaragtay xamaal u yahay marka at least xamaalka aan ka hadlayno waa totally different than midka hadda anaga dhabarka dhiganayno noocaas TV-da la qaaday waa xamaal macnaha professional way marka loading and loadingka waa ayadan waa skill waa xirfad la barto oo nolol ah oo dad fara badan oo physically movementigaaga mataqaanaa caafimaad fara badan gelin karo lacag fara badan hanti fara badan aad ka heli karto khibradna oo shaqo ku noqon karto ha cabsoonin noloshaadu weligaa kaga xishoonin shaqadaad qabanaysid noloshaadu weligaa ha uga xishoonin waxa ku soo gelayo iyo meeshuu kaa soo gelayo hadday noqoto meel adigu aad isleedahay alla ilaahay dadku way kugu cayn karaan kugu subin karaan you don't care why because of nin adiga carruurtaada kuma beelayo marka xamaaligu waa shaqo wanaagsan Nairobi markaan fiirino waxaa jiro agency ama company waaweyn oo imaado waxay ka imaadaan dalka dibadiisa ka imaadaan khaasatan dalalka carabta oo kale ka imaadaan waxay sameeyaan imtixaan yar bay dadka ka qaadaan imtixaankaas dadka qaadaan waxa weeye qofka kasoo inuu passport leeyahay medical test bay ku sameeyaan caafimaadkiisa waayo qof xanuunsan hadii wad garan kartaa adiga oo shaqamaad u dhiibateen caafimaadkiisa ay fiiriyaan kadibna waxay sameeyaan 25 kiilo oo carra ay xagaas dhigaan 25 kiilo qofka qaadaya kor u qaadaya wuu dhigayaa horad ka baasaysa Sacuudiga ama Qatar ama mataqaanaa ii sheeg Imaaraadka oo kale dalka dibadda sidoo kale sida maalin walba garoonka Jomo Kenyatta hadaad tagtid waxa ka dhoofto boqolaal qof ba ka dhoofto oo shaqooyin noocaas oo kala ah oo aan shaqooyinka ka soo shaqeeyaa oo dhoofan oo dadka madowga ay barteen waxyaalo badan baan soo baran doonaa casharo fara badan hadaad ku taxanaatid casharadeyda ku taxanaatid oo aad kaga faa'iidi doontaa maxaa adiga marka ku tahriibinay isweydii good example waa tahriibtay intaad ka baxday waa lagu dilay waa dhibaatooday kaliya dhaawac ka gaareen dhibaato badan baa ku martay waa silacday reerkiina hooyadaaba yaa gablantay hooyadaaba rafaaday 17,000 20,000 40,000 oo lacag kugu baxday and then marka xagga tagtay adigoo mentally tortured oo xanuunsan oo dhibaataysan baad tagtay and then 3 sano 4 sano 5 sano mataqaanaa ay sheekaad yaad hadana sharci iyo waxyaalo sugtay and then hooyadaadii dhibka ku soo martay 60 jirkeed ama 40 jirkeed wayba dhimatay ama abaa u dhintay dadkii qaranka laga soo roolay qaarkood marka ay tagaan xagga qaarkood waxa noo sheegay xataa khaniisiin noqdo qaarkood nolosha ka dhaco qaarkood nooc kala noqda why do you do that ma u sameyn ma intaad adiga wax un baratid maanta wax un aad samaysatid adigoo wixii taqaanid tartiibto aad dhooftid dalka dibadiisa aad baxd haddii kale guriga hooyada ka shaqaysatid loader and unloading garis markaad fiirisid ama aad fiirisid Wajeer ama Mandera Soomaaliya yes ayaga shaqaysada Soomaaliya dajiya suubi laakiin dhulkeena oo kale marka hadda subaxii ala saydi aad istaagtay normal hortiisa istaagtay 10,000 oo qof dad gaarayo ayaa magaalada gaas u shaqo tagto oo shaqooyinkan aan skill ka qabato oo ka laawato
ma aha in aan ku hortagsano aan diidana laakiin kuween waa inay iyagana shaqooyinka bartaan si mataqaanaa ay u noqdaan kuwa ka faa'iideysta fursadahaasi si aan uga fogaano ku beeritaanka kooxaha argagixisada ku beeritaanka kooxaha dadka dhibaateeyo ku beeritaanka kuwa tooriyaha wato ku beeritaanka kuwa muqaadaraadka isticmaalo waxaan la hadlayeen inta badan aan la hadlayeen waa dhalinyarada dadkeena hortaanada naga horeeyo iyo kuwa naga dambeeya nolosha iyo kuwa aniga aan dhalay noloshooda mataqaanaa wax badan okay marka inventory and stocker macnaha inventory and stocker waa shaqo aad iyo aad mataqaanaa ii sheeg aad iyo aad u wanaagsan wey waxa weeye ii sheeg in storeka adiga aad dhex joogtid oo inventory macnaha waxa yaala meesha adigu ku qoray 20 looro bariis de laga bixiyay 20 looro bariiskaad qoranaysa haddii 20 la soo gelin waa soo binaysaa shelfiska iyo meelaha la kala dhigahayana adiga hagaajinay waad og tahay bariiska maanta la rarayo iyo baastada la rarayo iyo alwaaxa la qaadayo iyo musbaarka la qaadayo meesha laga qaaday in aad u garanayso tusaale ahaan haddaad 50,000 oo bariis aad haysatid oo aad bariiska asaga u taariikha ku kala leeyahay waxaa la rabaa inventorygaaga inuu kugu qoran yahay 20,000 oo loor oo bariis ah waxa weeye waxay dhacayaan January 2027 bay dhacayaan laakiin 20 kale ayaa waxay dhacayaan 2055 kay dhacayaan adan keed iibinaysaa marka kee soo hormarinaysaa waxaad iibinaysaa 2027 ka dhacayaad iibinaysaa si mataqaanaysa marka waa soo kala hormarsanaysaa marka storeka asaga qofka joogo ee ka shaqeynaya ayaa waxaa la dhahaa inventory and stocker baa la dhahaa marka waa ninka storeka asaga hayo wuxuu organize gareyn levelka wuxuu organize gareynaya wuxuu issue gareynaya shelfska meelaha ay kala yaalaan qaabka loo soo kala qaadayo waxaasoo dilba shaqadiisa weey waa shaqo fudud oo aad baran kartid kuma xirna shahaado dugsi sare kuma xirna baalsha waa vocational training schools ka tii karta hada istaan ay sameysatid waa okay hada hataa koos taqaanid oo adiga iswadi kartid yes wacid ku diidayso ilaahay abuurtay ma jiro borotu adiga ma taqaana isha you can at least ma taqaana isha mujifuniyatu inaad adiga assistant oo hore isku wadid that is it waxa kaliya ka macna isha delivery assistance qola la dhahay jirto oo kuwa adeega ee alaabta geeyo mid baa dajiyay mid baa soo qaaday mid baa haray mid baa xifdiyay mid baa qofulka hayay mid baa waardi ka shaqeeyay kan marka waxa weeye isha waa midkii qad qaadayay tusaale ahaan store dad ka shaqeysid oo ama aad company u shaqeysid you have to deliver dadka qaar waa inaad loorka bariiska meesha geysid mobilka waa inaad meesha geysid marka waa shaqo ayadana la barto weeyo oo waxa laga yaabaa in maanta aad deliveryga aad geenaysid iyo berita kan aad geenaysid iyo beredam kan aad geenaysid companyga uu ku soo qoro ku soo diyaariyo cashirkaas halkaas ayaan mataqaanaa insha Allah taala ku soo gabagabeynaa mawduucana wuxuu ahaa logistic iyo warehousing wax la dhaho logistic iyo warehousing logistic and warehousing wax badan baa ku jira darawalnimadii baa ku jirto oo garanayno forklifts-ka kuwa qaadaan ee mataqaanaa xamaalka ah ku jira ee biraha wax ku qaadaan baa yaa ku jiro kuwa wishash wax ku soo dejiya jiro waxaas kulli waa shaqooyin banaan oo ka banaan dalalka reer galbeedka oo dalka wada banaan waana fursad yar oo aad baran kartid kooskaas aan ka hadlayo 6 bilood ka badan ma baranaysid waliba dadka anaga Soomaalida waa very active sidaad marka isku day walaalayaal in mataqaanaa ay sheeg aan ka fogaano muqaadaraadka aan ka fogaano dulmiga aan ka fogaano xaq darrada aan ka fogaano propagandada iyo siyaasadda iyo waxyaalaha aan mataqaanaa xaq aan u lahayn ee munaasabka aan ahayn dhalinyartuna waa inay kacaan oo ay u kacaan inay gacmahooda mataqaanaa ay sheeg waxaa weeye maxamed faarax shirninkeeda la hadlayo waxaan ka codsanayaa in barnaamijka aad ila share gareysaan kor aad ila qaadaan aad ila dhistaan aad wax badan igala qabataan aad iyo aad u mahadsantiin walaalayaal waxaan kaloo idin ka codsanayaa barnaamijyada tabarucaada ee kaalme kuwan walaalaha masaakiinta ay dhibaataysaneen caawino madaarista iskuulada darbiyada dadka jiifa kuwa garoobada kuwa dhibaataysan ee aan ka shaqeynana waxaan jeclahay in aad iyadana igala qayb qaadataan oo aad intii aad igala qaban kartaan igala qabataan aad u mahadsantiin walaal ka fogow inaad muqaadaraadka isticmaasho ka fogow inaad wax disho ka fogow inaad wax cayso ka fogow inaad wax xamato why all you do that all that hooyada ay aabahaba ku baahan gurigiina iyo noloshiina u baahan tahay maxaa waxaas dhibaato kugu kalidahay you don't need all that to do that si aad arrimahaas kulli uga fogaatid igu xirnaaw barnaamijkana share garee memberna ka noqo dejiso qaybi meel walba geli ood u fasaxanta aad u mahadsantahay jazakallahu